warniyow anigu waxaan kuga talin lahaa kiiskaan ha ku ceeboobi kiiskaan ha ku ceeboobi kiiskaan ha ku ceeboobi laba meeloodan marka kaa tusaaya mid waxa weeyaan dadka hadda oo ay eedu kaala dhaxayso waa dadkii bahalkii maxay ahayd maxamed siyaad bare oo markiina awoodna haystay yacni xukun adagna yacni haystay nimankii waxa weeyaan meesha ka saaray waay nimankii meesha ka saaray waay waa kuwee waa hawiye iyo daarood waay hawiye iyo daarood waay daarood waxaan u leeyahay waad ka dhalatay laakiin qolo kamid ahaa tahay labadii qolooyinkii kale oo maaragtay bahalkii daarood nimankan majeerteen iyo nimankan ogaadeenay ahaayeen majeerteen waxa weeyaan s s d f ay lahaayeen iyo cabdullahi yuusuf hawiyana u s c iyo caydiiday lahaayeen ogaadeenna wuxuu lahaa nimankii maortay s b m iyo in cumar jeesay lahaayeen saddexdoodaas waaye waxaa maaragtay dawladdii dumiyey haddeerna waxaad iska soo horjeedaan waa saddexdaas waay saddexdaas waay bal ilaahu maaragtay ogow inaan maaragtay bahalkii arrintaas ka naseexar bixiyo ilaahay ha igu ogaado saddexdii qolo waaye saddexdaa qolo oo shalay yacni dawlad bahalkii maxay ahayd labaatan jirsatay oo xoogowday soo ma ujeeday hilfaa u qaaday waxa weeyaan dawlad 2 jir ama 3 jir ama 4 jira waxa weeyaan walaalow ha isku bacdaadini walaalow nimankaan ha isku bacdaadini nimankaan niman sahlan ma ah nimankaan ha isku bacdaadini waxa weeyaan macnaha aniga ilaahay fulay igama dhigin waxa aan meeshan u geesinimadana waa jeclahay laakiin waa inay meesheeda tahay waa inay meesheeda tahay ama mabda ku tahay ama ay maaragtay raganimo iyo caqli iyo maamul ku tahay waa soo ma jeeda marka waxaa la yidhaahdaa ninkaas hebeli waa ishi yaqaan waa inaad xataa sagaarada lagu yaqaana iyo dad sagaarada dhigta iyo cawsha iyo ilintaqaan wax la yidhaahay leeda oo xarigga meesha loogu dhigay inay ku ilbaxdo oo ay ka leexato wixii loo dhigana ay cunto soo ma jeedid sagaarad ka lidata waxa weeyaan marka waxa weeyaan waxa waa inaad waa in lagu ilintaqaamo waayo dadkaanu dad sahlan maaha sideedana ninka dadka sahladaaba sidiisaba waaba doqonba aslan ninka dadka fududaysta kitaabkaagana waa la iiga sheegay aniga ma arkini kitaabkaagana waa la iiga sheegay inaad dadka fududaysatid waa la iiga sheegay hawaana kaa muuqataa haddana dadka inaad fududaysanaysid kaa muuqata dadka ninkii fududaystaa waa ku ceeboobaya soo ma jeedi waxaa marka waxaan dhihi lahaa nimankaanu niman sahlan maahan aad maarata ku taagan tahay waxaad yeeshaa war waxa kan waxa weeye ha ku ceeboobin hadda sharciyana hadda waxa weeye waa kaa dhamaatay sharciyana waa kaa dhamaatay wax kaloo ku diyaarana ma laha marka haddaad maaragtay damacday inaad xoogtidna wadadkaanu waa dadkaas waaye dhagaha fur farmaajo dhagaha fur caqligaagana fur dadkaas waaye waxaan kaloo kugu sii baraarujinaya waxa weeyaan ninku meesha uu joogo waa inuu xidida ku leeyahay meesha uu joogo waa inuu xidida ku leeyahay waxaan ka wadaa nimankan hawiye ayakana waa nooc gaara waay
haddaad tiraa haddaan nidhaahda maxamed siyaad barre waa la isugu tegi oo haweeye daaroodba waa isugu tageen walaalow cabdullaahi yuusuf ku caqli qaado iyo amxaaro oo amxaaro wata fiiriya cabdullaahi yuusuf oo amxaaro wata waa inaad ku caqli qaadatid waay cabdullaahi yuusuf oo amxaaro wata oo xamar dabaabaad ku soo galay soo ma jeeda oo daab hawiyana watay weliba soo ma jeedi ku caqli qaado meeshaan maaragtay bahalkii maxay ahayd haddii aydan xidida ku lahayn ma joogi kartid mana joogi karan maarata dad maaratay bahalkii maxay ahayd aan maaratay xidida ku lahayn ma joogi karaan weliba maaratay bahalkii maxay hadda ayaan dhaweynaa waa ka hadlaye waxa weeyaan nimankani waxa weeye sii jeedkay ku roon yihiin inay kaa sii jeedaanay ku roon yihiin hadday soo jeestaan waa dad xun waay hadday soo jeestaan dad xun waay soo moo jeeda marka waxa weeyaan war waxa kan nin yahow baraarug waxaan ma socon karaan midda waxaan ma socon karaan waxa weeyaan nimanka saddexdoodiiba hadda kaa soo horjeedaan haddana weliba meeshii raaska ku ed weliba waxaan kuu sheegayaa fiiri maxamed siyaad barre dadka dadow ka wadan jira asaguba ha ku qatalmin asaguba dadka dadow ka wadan jira hawiyaha dadow ku lahaa soo ma ujeedid ninka la yidhaahdo cabdiqaasin iyo ninka la yidhaahdo maaragtay galaal iyo rag badan oo ku lahaa oo maaratay aan caadi ahayn soo ma jeedid marka laakiin waxa weeyaan dadkaanu haddii fitna dhacdo wax ka xun ma jiraan mana kuu joogayaan ninka la yidhaahdo cali maxamed geedi waxuu badbaadin lahaa cabdullaahi yuusuf soo ma jeedid waa ku sharaf sheegay maxaara anaa keena waa laiga sheegay laakiin cali maxamed geedi iyo salaad jeelle iyo maaratay waxa weeya waxaas waxay kuu tarayeen ma jirto eeba ago haddii xabad dhacdona ayaguna safkay gelaayeen runtii aan kuu sheegay haddii xabad dhacdo safkay gelaayeen dadkaanu marka ma ahan dad aad maaratay bahalkii aad isku halayn kartid ma ahan mid kalena waa kuu sheegi lahay waxa weeyaan wiilkaan ha iga loogi wiilkaan aniga waxbuu iigu fadhiyaa waxaan sheegaa fahad ninka la yidhaha axmed saleebaan dafle kamana ciidan ka badna kamana tol badna axmed saleebaan dafle waa taqaani nin walaalkiisu cabdiraxmaan la yidhaahdaan maaratay aan asmara isku baran oo weliba ururka iyagu ku jiray waa niman raga waaye tol ragana waa leeyihi laakiin waxba ma badbaadin karin sababta waxa weeyaan booskiina ma joogaan soo ma jeedid weliba waxaan kuusii sheegaya weligaaba ciidama ka keen ciidan mad ka dagaalami kara meeluusan dad ku lahayn haddaba waa kuu sheegaya mithaalna waa ku siinaya